Bismillahi raxmaani raxiim. Waxaa maanta noo soo gabagaboobay amaba aan qayb ka ahayn gabagabadii doorashooyinkii ka socday maamul goboleedka Galmudug oo maalmahan aan u joognay sidii aan u kuurgeli lahayn qabsoomidda doorashadan inay noqoto mid mataqaanaa ka jawaabto baahida dadka u doorasho qof iyo cod ay ka qayb galaan. Runtii marka aan qiimeynay maalmihii hadda aan halkaan joognay waxaan aragnay amaba sidii doorashada u dhacdayba waxaan aragnay inay dadku aad u daneynayaan doorashada, u rabaan inay doorashada ka qayb galaan. Goobihii aan tagnay oo dhan aan ku aragnay dadkii maaragta u diyaarsan si ay u qaybgeli lahaayeen doorashada. Waxaan rabnaa inaan bogaadino marka hore doorashadii ku dhacday si nabdoon ah oo inta badan meelihii ay ka dhacday iyo goobihii ay ka dhacday oo ilaa 11 meel ahaa degmooyinkii inay runtii ay ku dhacday si nabdoon ah. Waxaan kaloo rabnaa inaan bogaadino dadweynihii runtii u soo baxay inay ka qayb galaan doorashada, muujiyey baahida u qabaan doorashooyinka, inay codkooda dhiibtaan, u dhiibtaan inay doortaan ciddii markaas matali lahayd. Waxaan ogsoonahay amaba aan marmadoonto ah in doorashada ay lahayd qaladaad yaryar kuwaasoo isugu jiray kuwa maaragta dhinaca farsamada iyo kuwa maaragta dhinaca mas-uuliyadda ah. Marka runtii taana waxaan isleeyahay in wax laga baran karo. Doorashooyinkan kuwa ku xigana ay u noqon doonto mid mataqaanaa lagu saxo, khaasatan doorashooyinka heer golo deegaaneed iyo heer maamul goboleedba. Bulshada rayidka runtii si ay maaragta u hubiso amaba ay u ogaato xaqiijinta baahida dadka u qabaan doorashooyinka qof iyo cod ah, waxaan tabarteena intay la ekeedba aan ka qayb galnay ilaa iyo 5 goobood inaan u tababarno dadkii ka qaybgeli lahaa dhinaca korjoogteynta. Goobahaas oo ah magaalada Dhuusamareeb oo halkaan aan joogno, Cadaado, Guraceel, Xeraale, Gaalkacyo iyo Cabudwaaq. Intaba waxaan geynay dadkii ka soo qaybgeli lahaa korjoogteynta oo soo xaqiijin lahaa. Dhammaantoodna runtii si wanaagsan ayay ugu qayb galeen qaybka korjoogteynta, walow ay jireen caqabado yaryar oo ay la kulmeen dhinaca wada shaqeynta dadkii maamulaya meelaha goobaha codadka. Taana ay tahay mid ka mid ah caqabadaha markastaba lala kulmo. Waxaan rajeyn doonaa haddii alla yidhaahdo inaan ka soo saari doono warbixin baahsan oo ku aadan qaabkii wax u dhaceen, caqabadihii lala kulmay, waxyaabihii laga bartay iyo qiimeyn guud aan ku sameyn doono doorashadii habkii u dhacday. Ugu dambeyn waxaan ku talinaynaa in guddiga doorashada iyo ururada siyaasadda ay ka qayb galay doorashada ay tixgeliyaan qoondada dadka naafada ah ee 5% taa oo sharciga dhigayo, iyo qoondada haweenkaba in aad iyo aad looga fikiro marka hadda ay doorashadu ay soo gabagaboobayso iyo sidii maaragta ay noqonayso xildhibaanada kusoo bixi doono, wakiilada kusoo bixi doono maamul goboleedka iyo golaha deegaankaba inay aad iyo aad laga maarmaan u tahay xaqiijinta qoondada dadka naafada ah iyo haweenka. Marka waxaan rajeynaynaa insha Allah haddii alla yidhaahdo taa inay noqoto mid markaas bulshada rayidku ay soo bandhigi doonto waqti ugu habboon oo ku aadan maaragta munaasabad u gaar ah oo lagu soo bandhigi doono doorashooyinka. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.